wafdigan oo ay hogaaminayso gudoomiyaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee u fadhiyay Somaliland isla markaasna ay wehelinayaan qaar ka mid ah gudoomiyaasha xafiisyada gobolada Somaliland ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Salaadiin Cuqaal Culamaaudiin dhalinyaro ayaa gaadhay deegaanka Awbarre oo ay ka socoto qabanqaabada qabsoomida shirweynaha wada tashiga xukuumadda iyo sidoo kale shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sanadkiiba hal mar lagu qabto qaybo ka mid ah gobolada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya shirkaas oo ay ka soo qayb galayaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar xubnaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo badi shacabweynaha ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka kala gedisan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu gorfeenayaa danaha iyo arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan ugu horeyn halkaasi hadal ka soo jeediyay oo ka warbixiyay shirkaas iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay gudoomiyaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Somaliland Marwo Nimco Mooge iyo sidoo kale Axmed Nuux Deero oo isna ah gudoomiyaha xafiiska jaaliyadda ee degmada Boorame. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anigoo ku hadlay afka jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku nool Somaliland waxaanu ka soo qayb galnay shirweynihii 20aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo lagu qabanayo Awbarre degmada Awbarre ee gobolka Faafan shirkaas oo ah kii xukuumadda iyo shacabka wada tashiga shacabka Soomaalida Itoobiya waanu ku faraxsanahay shacabku hawaaro guul baan leenahay waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar ha jiro oo ha joogan leenahay xisbiga abadkii hawaaro jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee degan Somaliland sida caadadu tahay had iyo jeer waxaan ka soo qayb galnaa oo si mug looga soo qayb galnaa shirweynayaasha muhiimka ah ee ka dhaca dowlad deegaanka iyaga joogta maantana waxaan halkan aad iyo aad ugu hambaleynaynaa oo aan magaranaysaa hambaliyo guul uga rajaynaynaa shirkan laga soo martigeliyey in laga soo qayb geliyay ergada aan ka nahay dhankooda waxaa iyaguna halkaasi hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah salaadiinta iyo cuqaashii ka qayb galaysay shirkaasi oo uu ka mid yahay ugaaska guud ugaas Xasan Chief Caaqil Cali Axmed Maxamuud iyo sidoo kale Suldaan Ciise oo iyaguna ka mid ahaa madaxdii dhaqanka ee ka qayb galaysay waxa kale oo mahadnaqaynaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo jaaliyadda degan dowladda Somaliland ka qayb galisay shirka wada tashiga ee lagu qabanayo degmada Awbarre aad iyo aad baan halkan waxaanu isugu nimi oo aanu ku soconaa shirka ka dhacaya degmada Awbarre haddaanu nahay jaaliyadda degan Somaliland casuumadana lagu soo casuumay ee shirka uu nagu soo casuumeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay shirka wada tashiga inaanu ka qayb galno shirkan oo sanadkiiba hal mar lagu qabto qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasna lagu gorfeeyo danaha iyo arrimaha dowlad deegaanka ayaa halku dhiga sanadkan ee shirka waxa uu ahaa geedi socodka xisbigeen waa aragtida shacabku oo ku salaysan midnimo iyo dib u curasho wafdigan oo ka qayb galaya shirweynihii 20aad ee xukuumadda iyo wada tashiga shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sanad walba meel lagu marti qaado ayaa sanadkan waxa marti gelisay degmada Awbarre ee gobolka Faafan wanajiib Cabdiwali Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal degmada Awbarre